warbixintan waxaan ku soo koobi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Puntland iyo Daesh guulaha taariikhiga ah ee ciidamadu gaareen saacadihii ugu dambeeyay Puntland way hadashay waxay sheegtay in kooxdii ay jab weyn u geysatay laakiin farxadka kooxdu ay ku qulqulayaan Somaliland iyo koonfurta Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ka soo baxay Puntland guulaha ay ciidamadu gaareen dagaalada goobaha ay ka dhaceen waxyaabaha la fashiliyay kooxda laga fashiliyay iyo arrimo kale ayaa barnaamijka ku soo koobi doonaa muuqaalkan la garay channelkeena subscribe saar waa 10 bisha 2 February sanadka 2025 haddii aan ku bilaabo warbixintana qoraal ka soo baxay la dagaalanka argagixisada ee Puntland ama howlgalka ayaa waxa lagu yiri ciidanku horay ay ugu ruqaansadeen baa lagu yiri deegaano hor leh waxayna howlgalla amni ay ka sameeyeen deegaanada la kala yiraahdo markaasi Hororiyo deegaankaas oo dhaca Toga Jacayl waxayna ciidanku isku fidiyeen ilaa markaasi aaga deegaanka la yiraahdo ee Qurac waxayna dhaheen ciidanku halka Qurac iyo goobahaas aan isku fidinay waxay ciidanku ugu tageen saldhigyo waaweyn oo ay kooxda argagixisada ee Daesh ay ka carartay qoraalkan marka ka soo baxay waxa moodaa in ciidamadu ay wali guuleysanayaan oo ay guulaha ku socdaan iyo ruqaansigooda iyo halka ay ku sii jahaysan yihiin kooxdu laakiin ay cararayso dhinaca kale mas'uul sare oo u hadlay Puntland ayaa waxa uu ka warbixiyay guulaha ay ciidamadu gaareen saacadihii ugu dambeeyay kooxda waa la jabiyay dagaaladii ugu dambeeyay intii la socota ee ka dhacay aaga buraha calmiskaad halkaas oo sidoo kale lagu gaarsiiyay khasaare culus dagaalka ayaa wali sii socda waxayna ciidamada Puntland ay ku soo dhawaanayaan ama ay ku sii dhawaanayaan buraha hoostooda oo ay ku yaalaan godad waaweyn oo ay ku dhuumaalaysanayaan xubnaha Daesh oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib ku soo duushay gudaha dalka ee Soomaaliya maleeshiyada kooxda oo dareemay culays xoogan ayaa waxa la soo warinayaa inay haatan ay bilaabeen inay u baxsadaan dalalka dariska ah sida uu shaaciyay taliye ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliska ee Puntland General Cismaan Cige oo xog cusub ka bixiyay howlgalka socda codkiisa idinla wadaagi doonaaye sidoo kale waxa uu tilmaamay in qaarkood ay isku dayayaan inay baxsadaan dhanka koonfurta ee Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland ayna soo afjari doonaan si looga sifeeyo dhulka Puntland General Cismaan Cige waxa uu sidoo kale bulshada ugu baaqay inay si weyn uga feejignaadaan isla markaana ay ka shaqeeyaan ama ay la shaqeeyaan ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira ee kooxda Daesh dagaalku waxa uu yiri waa dhacay dagaalkii dhacay biir waxa ka soo baxay firxad badan oo sharwadayaasha xagooda ka imaanaya kuna wajahan dawladaha dariska iyo sidoo kale koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya kuwaas oo jihadu ay ka lunsan tahay oo markaasi iska yaacaya ayuu yiri taliye ku-xigeenka labaad ee booliska Puntland si kastaba Puntland ayaa iyadu waxay markaasi ay wali wada dagaalka bal macluumaadka kale inoo dambeeyeen qayb kamid ah taliye xigeenka ciidanka Puntland aan idin dhageysiyo oo arrimahaasi ka hadlaya ama ka warbixinaya dhacdooyinka ugu dambeeyay waxa la farayaa oo aan amrayna in loo feejignaado dhammaanba dadka waajibaadka iska lihi ay u dhaga furnaadaan u indha furnaadaan firxadada faraha badan oo qaarna ay yihiin gurmad qaarna ay yihiin haddii rabbiidankeeda leeyahay kuwa gabaad ka dhex raadinaya dadka dhexdiisa kana dhex abuuraya amni la'aan sida aan wada ogsoonnahay sharwadayaashii lala dagaalamayo waxay ka soo gudbayaan aagaga meesha la yiraahdo ay isaga dhacaan labada buurood ee calmadow iyo calmiskaad hadday halkaa isaga tallaabaanna waxay u sii socdaan dhinaca Somaliland oo u sii socdaan dhinacan kaleeto oo sanaag intay ka dusaan inay isku dayaan inay halkaa ka qoodayaan oo ay dhinaca Sool ee halkaa ka jeexaan oo isku dayaan sidoo kale waxay marima ka samaysteen dad qaar badan aan ku qabanay kontarooladan goboladan kale hadday karkaar ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd nugaal iyo hadday ahaan lahayd inta u dhaxaysa hatta dangoriga baadiyaha qaar laga soo qabtay marka waxaan faraynaa ciidanka boolisku waajibaadka uu leeyahay amniga gudaha in uu saytaay u guto waata khiyaari halkaas oo laga soo laabano taliye ku-xigeenka ciidanka ee Puntland markaas General Cismaan Cige xogtiisa iyo warbixintiisa marka waxaanu iyadoo awoodaba Puntland waxa si weyn loogu bogaadiyay horta dagaalkaani ay ku qaaday kooxda Daesh
waxayna taageero ay ka helaysaa saaxiibada caalamiga oo duqeyna ka fuliyay gobolka bari duqeynada diyaaradaha ee cirka ah marka Puntland dagaaladan ay wado guulaha ay gaaraysa waxa barbar socda khasaare gaaraya ciidamada laakiin maadaama uu dagaal walba oo dhacayo uu khasaare iyo guulaba uu leeyahay waxa ay dawladdu ku dhiiranaysaa mar walba inay dagaalka sii wadi doonto khasaaraha iyo waxa gaaraya aysan ku niyad jabin dagaalka kooxdan ee la bilaabayna oo halkaas ka socdo dagaalka iminka guulo waaweyn ay ciidamadu gaareen laakiin waxa la soo warinayaa in kooxdu ay isticmaalayso khidado kala duwan si ay uga isaga difaacdo ama ay uga badbaado ciidamadan sida xawliga ku soconaya waxa la sheegay inay dhowr qaybood isku kala jibiyeen marar kala duwan ciidamadu ka xayraahday kooxda Daesh kadibna ay isku daydeen inay jihooyin kala duwan ay markaasi ka dagaalanto si ay ciidamadu u jahwareeriso laakiin ciidamada waxa la sheegay inay qudhoodu jihooyinka ay kooxdu ku fakaraysay ba ay joogeen sidaasna ay ku fashiliyeen waxa kale oo la soo warinayaa inay Soomaali iyo ajaanib u kala baxeen oo Soomaalida qudhooda ay dadka ajaanibta ay ka shakiyeen kadib markii ay Soomaalida ay bilowday inay ka goosato kooxda Daesh qaybtood isdiibaan kadibna waxayba ka shakiyeenba in raggan Soomaalida ah maadaama ay Puntland ay tiri Soomaalida isdiibta waan cafin doonaa rag hore isku soo dhiibeen la cafiyay ayagoo fursadahaasi ka faa'iideysanaya xubnaha Soomaalida ee Daesh ku jira ayaa ku ajaanibta waxay ka baqeen in ay maadaama rag fursad haysta yihiin ay isdiibaan kadibna xog ayaga ku saabsan ay bixiyaan marka ajaanibtiba waxa la leeyahay Soomaalida kuwada saraakiisha ama kuwada waaweynka marka laga yimaado dhammaanba kuwii maleeshiyaadka ay hubaysnaa ayba ka shakiyeen oo gooniba u direen oo dagaalka uga direen marka laga yimaado iyagoo taleefanadii iyo dhaqdhaqaaqooda iyo wax walba iyo xogahooda iyo lala soconayo oo ragga ajaanibta ay korka kala socdaan si aysan u fakan ama xog aysan u bixin marka kala shaki weyn ayaa kooxda gudaheeda ka jira arrintaas oo kamid ah waxyaabaha khasaaraha iyo jabka u keenay ee ayada qudheeda markaasi kala dhantaashay rag badan oo ajaanib ah ayaa gudaha isaga caranaya sida uu markaasi sheegeenna Puntland kooxdu waxay isku dayaysaa inay horta baxsato laakiin Puntland waxay sheegtay in ay laba dhanba ay ka go'doomiso kooxda waa tan koobaad goobihi ay ka baxsan lahaayeen inay ciidamo geysay bad iyo biriba meel walbana ay kala socoto waa tan kale ee ayadana waxaa jirta in goobaha ay sahayda ka heli lahayd ama dhulka ay wax u soo mari lahaayeen qudheeda kooxda in go'doon laga saaray sida ay Puntland sheegtay marka dhanka qootol daruuriga iyo culista iyo hubka iyo saanid wax walba waa go'doonsan yihiin dhawaan Mareykanku duqeynta u geystay ku xigeenkii kooxda ayaa la khaarajiyay inkastoo uu Mareykanku ku dhawaaqeen hogaamiyihii kooxda Abdulqaadir Muumin ninka Soomaaliga oo la sheegay inuu yahay kan guutadan ku sugan Soomaaliya iyo meelo kale oo Afrika oo dhan xukuma asaga lama ogi inuu gudaha joogo laakiin markii ugu wardambeysay waxa la sheegay in goobtii duqeynta Mareykanku uu ka geystay dhawaan inuu joogay markii ugu wardambeysay ama xogaha laga helayo markaas Estridon laakiin waxa jira xogo kale oo sheegaya inuu baxsaday oo dalalka Carabta iyo kuwa kale Afrika midkood uu ku sugan yahay bilowgii dagaalkana uu kamid ahaa dadkii fakaday ee ogaa dagaalkan ay Puntland soo wado inuu yahay mid aysan ka badbaadi karin ama mid adag oo isaga wax khatar ku noqon kara taas marka laga yimaado Puntland waxa hadii ay dagaalkan ay soo ku wado oo 70% dhulka ay ka qabsatay waxa la sheegay inay guulo waaweyn gaarayso balse hadii ay dagaalka halka ku joogsado maxaa dhacaya waxyaabaha ugu waaweyn waxa weeye in kooxdu ay niyad hesho sabaabusho bari kamalina dagaal hadii lagu qaado ay adkaan doonto oo ay aad u dagaalami doonto sababtoo ah dagaalo hore ay gashay ay markaas aaminaysaa inay ku guuleysatay oo mar walba ciidamada khasaaradooda ay badisay ay saa ku guuleysanayso talabaad waxay tahay isku daya dambe inaysan imaan hadda kadib oo dawladaha dambe ay dawladan ku tusaale qaataan ku cashar qaataan oo cid ka adkaanaysa mid labaadna niyad jab ciidan iyo niyad jab shacab oo ka dhacay Puntland oo ku saabsan hadii dagaalka Daesh iyadoo aan kooxda laga sifeen gudaha uu sida ku istaago marka dawladdu waxaas dhan way ogtahay iyadoo ka duulaysa in ciidamadu niyad jabin shacabku niyad jabin biri ka maalin kooxda aan cid ku dhiirata la waayin dagaalkii ugu horeeyay hadii ku fashilmo kuwa kale sidaas ka noqon iyadoo wax dhow yihiin kooxda dhaqaale ahaan ee dhan walba gaababska waxay Puntland wacad ku martay inaysan inta qof Daesh ku nool yahay buurahaas ay dagaalka joojinay dhanka kalena sheegtay in hadii ay kooxda iminka ka adkaato Daesh oo laga sifeeyo abaabulka xigu yahay al-shabaab iyo buuraha Calmadow al-shabaab
Soomaali bay u badan yihiin sida raggaan ajaanibta oo teknolojiyadda iyo belada ku hubaysan oo kala maahanba waa Soomaali ayagu waxa la leeyahay barqacad laga diirtay u badanta waad mahadsantihiin akhyaaray intaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenan gaarka oo aan ku eegayno wararka ugu dambeeyay ee dhacdooyinka iyo falaqaynteena ku saabsan dagaalka Puntland iyo Daesh waad ku mahadsantihiin mar kale waa idin mahadcelinaynaa inaad 100,000 aad gaarsiiseen falanteenu waa 200 subscribe share channelkeena muuqaalkaana la gaareen